soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaro halka kala socota waa Cawaalo Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeennana waxaa ka mid ah kulankii dhexmaray agaasimaha kooxda Chelsea ee Mariano iyo Lukaku muxuu ku dhamaaday. Kooxda Man City oo mar labaad isku dayeysay inay la saxiixato weeraryahanka Tottenham England Harry Kane. Kooxda Arsenal oo laba kooxood u soo bandhigtay saxiixa weeraryahankeeda Aubameyang waa kooxee. Dani Murphy ayaa aaminsan in Arsenal ku fashilmi doonto soo bixitaanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda. Dunida ha u diyaargarowdo Barcelonada cusub. Madaxweynaha Barcelona oo hadalkii ugu cuslaa ka jeediyay saxaafadda. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Waxaa xog laga helay natiijada wadahadalkii dhexmaray Isniintii shalay maamulka kooxda Chelsea iyo weeraryahanka kooxdaas Romelu Lukaku, kaasoo dhowaan bixiyay wareysi si weyn uga cadhaysiyay kooxdaas iyo jamaahiirteedaba. Thomas Tuchel ayaa go'aan ku gaadhay in Lukaku ka tuuro safka kooxdiisa ka hortagay Liverpool Axaddii, laakiin haatan wargeyska Goal ayaa sheegay inay aad u yartahay fursadda Romelu Lukaku kaga dhaqaajin karo Blues sanadaha soo socda. Wadahadalkii dhexmaray Lukaku iyo gabadha agaasimaha ka ah kooxdaas ee Mariano ayaa ahaayeen kuwo aad u wanaagsan oo labada dhinac la isku fahmay. Lukaku ayaana kulankaas muujiyay siduu uga xun yahay wixii dhacay. Thomas Tuchel ayaa lagu wadaa in shirka jaraa'id ee maanta qabanayo ka bixiyo faahfaahinta ka badan. Kooxda kubadda cagta Man City ayaa kor u haysa jeeg ay ku qoran tahay lacag gaadhaysa 150 milyan oo gini. Ay doonaysaa inay la gasho suuqa iibka ciyaartoyga bishan January, waxayna diiradda tababara Pep Guardiola saaran tahay laacibkii hore u calmaday ee loo diiday. Sidoo qoray wargeyska The Mail ee ka soo baxa magaalada Manchester, kooxda horyaalka difaacanaysa ayaan weli qasnadeeda ku celin jeega 150 milyan oo gini oo xagaaga ay ugu talagashay weeraryahanka reer England ee Harry Kane iyo kooxda Tottenham uga dhaaratay. Guardiola ayaa qorsheynaya in mar kale ku laabto Tottenham oo ka dalbada Harry Kane, laakiin haddii waayo keligiis kuma koobi doono, isla markaana indhihiisa dibadda uga saari doona horyaalka Premier League. Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay suuqa dhigtay xidigeeda Aubameyang, sida ay sheegayaan wararku. Xidiga reer Gabon ayaa muuqda mid ku jira toddobaadyadii ugu dambeeyay ee mustaqbalkiisa kooxda Arsenal, kadib markii laga qaaday calaamadda kabtanimada isla markaana aanu u ciyaarin kooxda. Sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail, Arsenal ayaa saxiixa xidigan u soo bandhigtay kooxaha Juventus iyo Newcastle United si ay saxiixa u helaan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bishan. Dani Murphy ayaa aaminsan in Arsenal aanay u soo bixi karin Champions League xilli ciyaareedkan soo socda. Waa falanqeeye hore ugu ciyaari jiray kooxda Liverpool. Dani Murphy ayaa aaminsan in Arsenal ku fashilmi doonto inay u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda, sababtoo ah xilli ciyaareedkan waxay ku xuntahay kulamada martida. Gunners ayaa hadda ku jirta kaalinta afraad iyadoo kadib 20 kulan oo ay ciyaartay, waxaana boosas kula tartamaysaa kooxaha West Ham, Tottenham iyo Man United. Kooxda Arsenal ayaa si weyn ugu dhibaatoonaysa kulamada martida ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. Murphy ayaana aaminsan in arrintaasi sabab u noqon karto inay Arsenal u soo bixi weydo Champions League. Waxaan u maleynayaa inay ku jiraan qaab ciyaareed cajiib ah xilli ciyaareedka, waxaana sameynaya horumar oo arkaysa inuu muuqdo dib u dhiska ku sameynaya kooxda macallin Mikel Arteta. Laakiin dhibaatada Arsenal ugu weyn ee haysata waa kulamada martida. Daniel Murphy ayaa sidaas sheegay. U diyaargarowda Barcelonada cusub. Madaxweynaha Laporta hadalkii ugu cuslaa hawada u mariyay saxaafadda. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa fariin u diray dhammaan kooxaha caalamka, isagoo sheegay in kooxdiisu ku soo laabatay sameynta saxiixyada waaweyn wali ay weli ku jiraan deymo badan ee €1 bilyan.
Barcelona ayaa dhowaan heshiiska 50 milyan oo euro ee Man City kagala soo wareegtay weeraryahankeeda Ferran Torres maruu ka hadlayay soo bandhigistii Ferran Torres. Joan Laporta ayaa fariin culus u diray kooxaha markii wax laga weydiiyey arrimaha Erling Haaland ee fursadda kula saxiixan karaan. Qof kastoo dunida jooga ha u diyaargarooba maadaama aanu ku soo laabanay saxiixyada waaweyn ee suuqa. Barca way soo laabatay, ayuu Joan Laporta hadalkiisa ku soo gabagabeeyey. Barnaamijkeeni ciyaaruhu intaas ayuu ka egi. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe saar, asxaabta hore noola joogtana like iyo share ku dara siina faafiya barnaamijkeena si uu gaadho asxaabta cusub.